يعني inay wax dhashay ciyaal ay leedahay wax dhan waa jiraan haddana waa ka soo tagay nin kale waxa helay adeer asna la dhahay Ismaaciil Afro soo ii sheegay nin wanaagsan ah si wanaagsan wax ii fahansiiyay gurigiisa ku soo kortay gurigiisa oo yani ay ku soo aroostay hadda adi indhaha istiraysid ma sheegi karo fahme waxa familka hooyada aabaha ku dhaheen adeer iyo dadkii oo YouTube soo la soo fadhiisanayo arintiina saan ay tahay cirka isku shareeraysay arintan fiiri arintii marka Kamaal ku soo wareejiyay Kamaalkii marka waa fahmay Kamaalkii ama kaaga noqotay waay marka ani yani waay isaan u sameeyay oo bilaabay markii uu dhaho Kamaal ugu dambeyn kitaabka Quraanka Kariimka ayuu ku dhaartay in la qiyaanay ayuu sheegay in gabadhii hani ahayd ay been u sheegtay ayuu sheegay su'aalo badan halkan iska weydiin doonaa marka ugu horeysa Ilaaha mahad iska leh xaqa ma qarsoomo xaqa Soomaalidu waxay tiraahdaa hadduu qarsoomana feeruhu ka dilaaca social media dadka ku wada jira YouTuberska ah Facebookerka ah wax qora dhammaantood beenaalayaal waa lama dhihi karo dhammaantoodna run ay sheegaan lama dhihi karo laakiin mahma afka lahjada markaad fiiriso mayga ah oo waxa dhahdaa jirta walaagii la sheego walay ka jiro wixii la sheego wax lay ka jira oo aan la jeedo arinta Abdul Kamaal Abdul iyo hani way soo shacbaxday dadkii ka hadlay YouTuberska ahaa iyo Facebookerka ahaa dad aflagaadeynay ninkan xaaskiisa maxaa ka rabtaa dad dhahayay laakiin hadda xaqiiqda ayaa soo daahirtay muuqaalkii ugu dambeeyay uu iska soo duubay Kamaal Abdul wuxuu qirtay inay qiyaantay hani kitaabka Quraanka Kariimka ayuu gacanta gishtay iyadoo ummadda Soomaaliyeed ay wada arkayaan waxa sidoo kale inoo muuqata in dhaartaas aysan been noqon karin Ilaahay wixii qalbigiisa ku jira wuu arkayaa Kamaal waa adoon Ilaahay anaguna adoomo Ilaahay baan nahay waxa marka muuqanaysa maama 8 cunug soo dhashay 3 Ilaahay ka jeclaaday 5 hadda u joogto odaygeedii Cabdisalaam waraysi uu bixiyay oo uu yiri Kamaalow gabadhaas aniga qaba waa iga sixirtay Francisca aada ay nagu tire iyadoo Turki ka degtay aragnay oo ninkan uu dhahay xaaskeygan soo dhaweeyay sideed ku garan weysay hooyo soo dhashay 8 caruur ah waa su'aal meesha taalo marka koowaad way ku qiyaami kartaa ha ku qiyaanta ma xumee qaabkay ku qiyaanta gabadhan markii aad isbarateen ee aad wada hadlayseen sideed ku ogaan weysay in reer ay leedahay sideed ku ogaan weysay in hooyo ay tahay hadda Kamaal waxaad noo sheegtay in caruur inay leedahay dib aad ka ogaatay Cabdisalaam in ay isqabaan aad ogaatay hooyo Soomaaliyeed oo 5 caruur leh inay tahay aad ogaatay iyada maxaa ka keenay in ay been intaas la ku sheegto adiga sidee ku aqbashay gabar hadda wili aan la guursan iyo maamo cunugi xal dhashay ayaa kala garan kara waxa kale oo meesha iiga soo baxday su'aal la xiriirta gabadhan wuxuu yiri markii aan runta isku sheegnay oo kitaab Qur'aan u keenay gacanta gashaan dhahay way ooysay oo waxay tiri aniga hooyo ayaan ahay caruurtaasna aniga dhalay gabadheedana waa qaangaar Ilaahay u deeyo wixii ma barankii iska ahaayeen oo gabadha ayaa sheekadan wadatay ma Cabdisalaam ayaa baranka sameeyay mise adiga ayaa baranka sameysay sidaan wada ogsoonahay gabdhaha Soomaaliyeed khayr Allah siiyo intooda badan ku wanaagsan ku jira gabadhan sirteeda inay fashilanto dabcan dad badan ka qayb qaatay Ilaahay ku shaqal leh oo qofkii dib wada Ilaahay banaanka ayuu ceebtiisa keenaa maxaa u sabab ah in gabadhan heerkan ay gaarsiisanaato ma Cabdisalaam nacayb ay u qabtay arintan ku sameysay ma caruurteeda nacayb ay u qabtay intaan ku sameysay ma dib kale oo problem maskaxiyana haysta gabadhan waa su'aal kale oo isweydiin mudan oo jawaabteeda aan lahayn
cabdul tallaabada uu qaaday marka dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ayaa maanta ku dayan lahaa oo gabdho fara badan oo la qabo wax ka raadin lahaa oo maanta u istaagi lahaa in gabdho fara badan oo hooyooyin ah ay wadada cabdul uu maray marsiyaan. adduunyadana dulmiga ma fiicna. zina haddii la yiraahdo way kala weyn tahay. ninka wax ka raadiya haweeney la qabo iyo midka wax ka raadiyo haweeney aan la qabin xataa labay kala tahay. mashaayikhdu way noo sheegeen. runtii cabdul in runta uu soo bandhigayna wuu ku mahadsan yahay. ilaahay baana ku mahadsan marka hore oo wixii xaqiiqda ahaa banaanka keenay. gabadhaasna hadda wadada u furan waxay tahay ilaahay in raaligelin ay weydiisato iyo in raaligelin ay weydiisato ubadkeedii iyo odaygeedii Cabdisalaan. dad badan oo waxaan arkay baraha bulshada aad iyo aad ugu hadal haya arrintan. kuwa qabiil ayay ka dhigayaan, kuwa waxay u rogayaan deegaan iyo waxaan loo joogin iyo gobol, kuwa waxay u rogayaan si kale. laakiin qaladkan weyn ee dhacay sabab buu u dhacay. kolley hadda Kamaal waa kaasa kitaabka Quraanka Kariimka gashtay gacanta. wiilkii kale ee la joogayna sidoo kale kitaabka Quraanka Kariimka ayuu gacanta gashtay. Kamaal iyo saaxiibkiiba marka xaqiiqda aynu ka hadalno maanta iyo dunida aynu joogno marxaladda lagu jiro waan la socnaa. maanta dunida aynu joogno dadka Soomaaliyeed ee Yurub joogaan arkeena dhibaatada haysata. kuwa Mareykan joogo ayaan arkeena dhibaatada haysata. kuwa jooga Afrika ayaan arkeena dhibaatada haysata. marka waxaan rajeynaynaa hadduu Ilaahay ka raali noqdo in ummadda Soomaaliyeed dalkeena horta Ilaahay noo dejiyo. ilaahay culayska dalkeena uu ka dulqaado, amni xumada uu naga dulqaado. wadamadaas reer galbeedkana dhibaato kuwan ka waaweyn oo aan anaga ka warqabin inay jirtaanba ka baqayaa. waxaad arkaysaa Mareykanka maalmihii ugu dambeeyay waxaa la hadalhayay hooyo Soomaaliyeed caruurteeda laga qaatay. gabar Soomaaliyeed oo gabdhihii iyo caruurtii kale ay dhashay waa laga watay. maalin walba qaylo ayaa ka soo yeeraysa Yurub iyo Mareykanka. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in qoysaskeena uu dhooro, in gabdhaheena uu dhooro, wiilasheena inuu dhooro. arrintii Kamaal halkaas ayay kusoo biyo shubatay. dabcan Kamaal wadada kale ee u furan waxay tahay in uu raaligelin toos ah weydiisto ilaahay subxaanahu wa tacaala. sidoo kalena raaligelin toos ah uu weydiisto caruurtii iyo weliba odaygii ay kasoo tagtay gabadhan hani ah oo khiyaamo samaysay haddii sida hadalka uu dhigay ay u jirto. kolley hanina waan ka sugaynaa iyaduna siday arrintan uga hadasho iyo waxa ay ka dhahdo iyo isbedelka ay la timaado. sii sheergaray muuqaalkan si qof kasta uu u gaaro. haddii ay tahay markii ugu horeyso channelkan aad soo booqatay nagu soo bir ayaan ku leenahay. subscribe saar, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtaa naga ilaabin. mar kasta iyo meel kastoo aad joogtana waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida had iyo goorba muuqaaladeena aad ugu xiran tahay. mahadsanidin.